sheekh Yahya ibn Mu'aad buha muhaddisiintii buha taabiciinta markuu dhintay ayaa manaan baa lagu arkay manaan dadkii wanaagsan oo isarkayeen moogtahay dadka imika dhoof bay ku riyoodaan dhoof isagoo badii ka talaabo Talyaaniga galo ku riyoon mid markaasuu anu wallahi waan arkay anoo Yurub galo waa sii socdaa salaama wariyadaad aragtay marun baad wixii maskaxdaada ku jira baa habeenkii shaydaanku ka soo dhex saaray dadkii wanaagsanaa jannaday arkayeen oo qiyaamaha ay arkayeen oo ilaahay wajigiisa ay arkayeen culimada qaarkood rag baa ilaahay daatadiisa arkaya habeenkii markay seexdaan rag baa habeen walba nabi maxamed la kulmaya calayhi salaatu wasalaam Yahya ibn Mu'aad baa kamid aha markuu geeriyooday ayaa manaam lagu arko lagu yiri sheekh Yahya nin waacida oo muhaddisa oo zaahida oo ummadu jeceshahay baad ahayde ma facala Allah bika maxaad rabbiga kala kulantay noo sheeg baa lagu yiri markaasuu yiri fudhixtu wallahi fadeex waan ku fadeexadoobay waan ku fadeexadoobay buu banka qiyaamaha oo ilaahay baa iigu yiri soo qabta Yahya ii keena wallahi horgeeyo ilaahay markaasaa ilaahay igu yiri sheekhagan xun maanta camalka aad agtayda soo dhigatay eed isleedahay waad ku badbaadaysaa sheeg baa laygu yidhi buu yidhi markaasaan idhi yaa rab 36 xaj ayaan Carafa joogsaday oo agtaada soo dhigtay markaasaa ilaahay igu yidhi midna kaamaan aqbalin sheeg camal kale markaasaan idhi yaa rabbi 63 oo khatma qur'aaniya ayaan soo khatiman wataa markaasaa lagu yidhi midna kaamaan aqbalin waan kugu soo celiyey sheeg wax kale markaasaan dhulka eegay markaasaan isiri dee camalkeen kaloo sheeganba labadii camal ee islahaa waa ugu rajo fiican tahay waa 36 xaj oo Carafa istaagay iyo 63 oo khatmata alqur'aana intiiba markii laygu soo celiyey la yidhi lagaama aqbalin laygu yidhi ayaan madaxa ganoodiyey oo laygu yidhi walibana kor u taag madaxaago camalka aad agtayda soo dhigatay maanta aad leedahay waad ku badbaadaysaa itus markaasaan idhi yaa rabbi hee anu waxba ma wato waxba ma soo qaadan ba hee adigaan ku imid bas waxaan garanayay inaan u tagaaya rab kariima ghafuura shakuur rahiim sataar xaliim latiif cafuwun ghafuur rabbiga sifaat kaale inaan la kulmaayo ayaan garanayo waxba ma watee yaa rabbi anigu adaan ku imid bas markaasaa ilaahay gu yidhi haddaad ii timidee waa kuu dembi dhaafee jannada gal markaa raxmadda ilaahay baa jannada ku galee dadka u sheegay buu yidhi hadday waa taabiciintii waa zuhaadii waa muxaddisiintii waa salafu haadihi alumma xasan albasri maantaan akhrisanayay maanta xasan albasri wuxuu yidhi 30 sano ma qoslin 40 sanana hadal maa laa yacni oo kaftana kuma hadal buu yidhi inagu maalintii imse jeer baan kaftannaa imisaan caytamaynaa imisaan ummad xamanaynaa imisaan waxaan doonna eegaynaa imisaan waxaan doonna maqlaynaa laqad adraktu aqwaaman waxaan soo gaadhay aqwaam buu yidhi aqwaam waxaan soo gaadhay waa saxaabadii rasuulka raggaan ka soo gaadhay markaan la joogay waxaan ku dhex ahaa buu yidhi tuug baan ku dhex ahaa buu yidhi tuug وحسن البصري بهذا الكلام أين نحن ما أنت الكين جوجنا ما أنت